السلام عليكم داوديال Kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad kala socotaan BahdaTv qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo ka badbaaday isku day dil ah kadib markii ay rasaaseeyeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya xiisada u dhaxaysa wadamada dariska ee Soomaaliya iyo Kenya oo cirka isku shareertay iyo dawladda federaalka oo war ka soo saartay xilli ay xukuumadda Nairobi ku hanjabtay inay joojinayso gabi ahaanba duulimaadyada Soomaaliya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo isku khilaafay qaabka loo bedelayo xubno ka tirsan gudiyada doorashooyinka oo mucaaradku ay dacwad ka soo gudbiyeen Somaliland oo lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo musharaxiinta horkacaya oo la shaaciyay xubnaha golaha wasiirada ee u dhawaan soo magacaabay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ansixiyeen iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo sheegay in uu geeri ka xigo in uu xilka wareejiyo qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan u diyaar garooba wararkeena oo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka BahdaTv oo dhameystiran fadlan si ay mar walba ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee BahdaTv subscribe saar lana wadaag asxaabtaada aan ku bilaabo sidoo hordhaca warkeena ardin kugu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii ay rasaaseeyeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya israasaaseen u dhaxaysa ciidanka asluubta ee ku sugan agagaarka maxkamadda gobolka Banaadir iyo ciidamo la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka dhacday afaafka hore ee maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo oo ay ka dhasheen qasaaro dhaawac ah oo soo gaaray askarta israasaaseyntu dhexmartay dad goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amniga ayaa sheegay in askarta ku sugan kontaroolka kawaanka malayga ee degmada Xamarweyne ay rasaaseeyeen gaari nuucan xabadu oo saarnaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud waxaana rasaastaasi durbo jawaab ka bixiyay gawaarida ciidanka ee galbinaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo ka carooday rasaasta lagu furay gaadiidkaasi galbinaya Xasan Shiikh waxa la sheegay in labada dhinac ay daqiiqado rasaas kooban isweydaarsadeen kadibna ay istaagtay wararka ayaa sheegay in Xasan Shiikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ku amray ilaaladiisa inay xaaladda dejiyaan ciidamada dawladda ayaa dhowr jeer hore waxa ay weerar ku qaadeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iminkana kamid ah xubnaha ugu cadcad midowga musharaxiinta waxaana rasaastan lagu furay gaadiidka galbinayay Xasan Shiikh Maxamuud ay imaanaysa iyadoo oo dhawaan heshiis laga gaaray murankii isqabqabsigii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya laguna ballamay in ciidamadu aanay wax shaqaaqa ah oo dambe lugta la gelin oo xaaladda la dejiyo xiisada ka dhaxaysa wadamada dariska ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku shareertay iyadoo oo labada dal ay dawladda Qatar ka dhex waday kol hore dhexdhexaadin lagu doonayay in si buuxda xiriirka iyo cilaaqaadka labada wadan loo soo celiyo balse maalmo kadib markii lagu dhawaaqay in la soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed xukuumadda Nairobi ayaa shaacisay in ay joojisay gabi ahaanba duulimaadyadii kaga imaan jiray dhinaca Soomaaliya Kenya ayaa joojinta duulimaadyadii kaga imaan jiray dhinaca Soomaaliya iyo kuwii dalkeeda ka soo bixi jiray waxa ay u cuskatay in dawladda federaalku ay diiday inay fasaxdo duulimaadyada qaadka maadaama ay faa'iido ballaaran oo dhinaca ganacsiga ah dawladda Kenya ku qabto qaadka dalkeeda ka baxay ee Soomaaliya loo beecgeyn jiray dhawaan waxa soo baxay warar sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu tagayo magaalada Nairobi halkaasi oo uu kula kulmayo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo casuumaad rasmi ah u soo diray ra'iisul wasaaraha Roble hase yeeshee xukuumadda Soomaaliya ayaa meesha ka saartay safarkii ra'iisul wasaare Roble ee Nairobi kadib markii la ogaaday in Kenya ay wado cadaadis hor leh iyo cunaqabatayn ku wajahan Soomaaliya oo ay kamid tahay in ay xitaa meesha ka saarto diyaaradaha gargaarka sida oo kolkii hore ay ogolaatay in ay Soomaaliya yimaadaan kadib markii ay si cad u joojisay duulimaadyadii dhinaca ganacsiga
ورئيس بحيي وزير كارمها دبادة حكومة فدرالك الصومالية محمد عبد الرزاق محمود وحاو كغا الله حرير كلابada dal ee Soomaaliya iyo Kenya wasiirka ayaa sheegay in aanu kusoo laaban doonin cunaqabatayn iyo cadaadis hor la xiriirka labada wadan balse loo baahan yahay in Kenya ay garawsato in labada dal ee dariska ah ay yihiin kuwa u baahan in ay si hoose u wada xaajoodaan oo meesha laga saaro wax kasta oo qatar ku ah xiriirka Muqdisho iyo Nairobi محمد عبد الرزاق ayaa tilmaamay in dawladda Qatar ay juhdi gelisay wada xaajoodka labada dhinac isla markaana Muqdisho iyo Nairobi ay u dirtay hal wafdi si ay xog waraysi ula sameeyaan madaxda labada dhinac ugana dhageystaan cabashooyinka ay qabaan kadib markii uu amiirka guud dhageystay cabashada labada dhinacna uu si hoose u xaliyay oo lagu guuleystay in la soo celiyo cilaaqaadka balse ay ku xadgudubtay qodobadii lagu heshiiyay dawladda dalka Kenya waxa uu sidoo kale wasiirku sheegay in laga yaabo inay kulmaan mas'uuliyiin ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya hadii uu xaalku isbedelo balse iminka Kenya ay u muuqato mid ka sii leexanaysa dhabaha wada xaajoodka Soomaaliya iyo Kenya ayuu cilaaqaadkooda iyo xiriirkooda diblomaasiyadeed aad u liitay intii uu farmaajo xafiiska joogay محمد عبد الرزاق محمود وزير كارمها دبادة حكومة فدرالك الصومالية waxa uu siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku sifeeyay mid la jaan qaadaysa xilligan casriga ah isla markaana aanay ahayn mid meel kaliya taagan sida uu hadalka u dhigay wuxuu wasiirku sheegay in Kenya ay mar walba qaadaysay talaabooyin xadgudub ku ah Soomaaliya iyada oo ay jirto in xitaa ay ku haysato Soomaaliya qayb kamid ah badeeda oo laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ inay go'aan ka gaadho madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble iyo qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa isku maandhaafsan qaabka isbedel loogu sameeyo xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee ay dacwadda ka soo gudbiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka isbahaystay ee la baxay midowga musharaxiinta waxa ay dhawaan soo gudbiyeen 67 xubnood oo kamid ah gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay intooda badan yihiin shaqaale dawladeed iyada oo xubnaha kalena loo cuskaday inay saaxiib dhow leeyihiin madaxweyne Farmaajo taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo u janjeera dhinaca madaxtooyada waxay mucaaradku sheegeen in loo baahan yahay in xubnahaasi meesha laga saaro iyagoo oo warqadda ay liiska ku diyaariyeen farta ka saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo laga sugayo inuu isbedel ku sameeyo balse saacadii ugu dambeeyay wararka lagu kalsoon yahay ee dhinaca madaxtooyada ka soo baxay waxay sheegayaan in la isku maandhaafsan yahay in dhammaan la bedelo xubnaha ay mucaaradku soo gudbiyeen ee 67 xubnooda taasi oo ka dhigan in dawladdu ay si buuxda ugu hogaansantay amarada mucaaradka hadii si toos ah meesha looga saaro xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee ay ka dacwoodeen midowga musharaxiinta mas'uuliyiinta qaar ayaa doonaya in ugu yaraan kala bar xubnaha meesha laga saaro inta kalena la daayo oo lagu bedelo xubno dhexdhexaad ah halka shakhsiyaadka qaar ee ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ay ku jiraan wasiiro ay doonayaan in dhammaan 67 xubnood ee kamid ah gudiyada doorashooyinka ee mucaaradku ay ka dacwoodeen meesha laga saaro maalmaha soo socda ayaa la rajaynayaa in si toos ah loo magacaabo gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed oo dhameystiran waxaana intaasi kadib la gudagali doonaa doorashada xubnaha aqalka sare iyadoo oo ay ka dambeyn doonto doorashada xubnaha golaha shacabka oo ka qabsoomi doonta gobolada dalka iyo caasimadda waddanka ee Muqdisho dadka qaar ayaa dhaliil ka muujinaya sida ay ku hirgeli doonto muddadii 2 bilood ahayd ama 60 cisho ahayd ee ay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu ku heshiiyeen in dalka doorasho looga qabto waxaana wali lagu muransan yahay qaabka gudiyada loo bedelayo iyo sida lagu saxayo qaladaadka ka jira gudiyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee dhinaca doorashooyinka madaxweynaha Jubbaland ayaa soo magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed oo uu la wadaagay ra'iisul wasaare Rooble balse xubno ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaliilay shakhsiyaadka Axmed Madoobe soo magacaabay oo ahaa kuwii maamulayay doorashadii uu isagu markii saddexaad ku soo baxay ee dabayaaqadii 2019 ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubbaland
Somaliland waxa lagu dhawaaqay natiijooyinka horudhaca ah ee doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyada oo wali ay horkacayaan natiijooyinka soo baxay xisbiga talada haye ee kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ee wadani halka uu kaalinta saddexaadna ku jiro xisbiga ucid ee uu hogaamiyo injineer Faysal Cali Waraabe guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in deegaanada qaar lagu dhawaaqay natiijooyinka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaana natiijada la shaaciyay ilaa iyo iminka ku horeeya xisbiga kulmiye inkastoo ay tahay natiijo hordhac oo aan rasmi ahayn natiijada hordhaca ah ee goobaha lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah degmada Taleex ee gobolka Sool oo xisbiga kulmiye uu ka helay 6 xubnood halka xisbiga wadani uu ka helay 3 xubnood iyadoo oo uusan xubinna ka helin xisbiga ucid tirada guud ee kuraasta xubnaha degmada Taleex waa 9 xubnood waxaana sidoo kale la shaaciyay deegaano kale oo ka mid ah gobolka Maroodi Jeex oo lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashada golaha wakiilada iyo tan golayaasha deegaanka musharaxiinta ay shacabku taageerada weyn u muujinayeen oo uu kamid yahay Barqad Jaamac Batuun ayaa la sheegay in ay rajo weyn qabaan oo ilaa iyo iminka natiijada la shaaciyay ay ka haystaan tiro macquul ah oo ka dhigi karta in ay ku soo baxaan doorashada oo ay ka mid noqdaan golayaasha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaanka guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in iyagu shaacin doonaan natiijada kama dambaysta ah oo ay la wadaagi doonaan bulshada Somaliland iyo bulshooyinka kale ee caalamka ee isha ku haysta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka dhacay deegaanada Somaliland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa golaha wakiilada maamulka Jubbaland waxa uu uga mahad celiyay sida ay u meel mariyeen xukuumadii u dhawaan soo magacaabay baarlamaanka Jubbaland ayaa ansixiyay tiro wasiir ah iyo wasiir ku xigeenno u dhawaan soo magacaabay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha ayaa tilmaamay in hawlaha waaweyn ee horyaala xukuumadda ay kamid yihiin horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka dhalinyarada iyo maamul daadejinta isagoo oo xusay in hawlahaasi oo dhan iyo kuwa uu door wanaagsan ka qaadanayo dardargelintooda iyo sidii ay xukuumaddiisu u guuleysan lahayd xukuumadda Axmed Madoobe soo dhisay dhawaan ayaa waxa ay ku soo aaday iyada oo isqabqabsi ka jiro qaar ka mid ah deegaanada Jubbaland siiba gobolka Gado oo dadka ku nool ay dhaliilsan yihiin maamulkiisa ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu geeri ka xigo inuu xilka wareejiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka hadlay cod u muuqday in laga soo duubay Abiy Ahmed oo sheegaya inuu geeri ka xigo inuu xilka ka dago ama uu wareejiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay sheegeen in codkaasi aanu rasmi ahayn balse codkan oo ay baahiyeen wakaaladaha caalamiga ah ayaa waxa uu muujinayay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlaya doorashooyinka Itoobiya kuna adkaysanaya in aanu xafiiska banayn doonin Abiy waxa uu ku sheegay codkan laga soo duubay in uusan wax shaki ah uga jirin in uu ku guuleysan doono doorashada isagoo oo sheegay in uusan xitaa natiijada aqbali doonin hadii doorashada looga guuleysto wuxuuna ku andacooday in aanu xafiiska marna banayn doonin oo uu noqon doono shaqsiga sii hogaaminaya Itoobiya waxaa inta ku dhan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad kala socoteen BahdaTv ha hilmaamin subscribe-ta intaynu ku kulmi doono warkan kan xiga sida ay nabadgelyo